أرضي بانهايو أرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. halkan waxaan idin soo gudbin doonaa leesankii labaad. Waxa ka horeeyay 10keenii hore ama 10keenii koobaad. Waxaan ku soo aragnay dhowr qodob ama dhowr ciwaan soo baranay. Waxa ugu horeeyay waxaan soo qeexnay kelmadda thermochemistry ama chapterkeena afraad soo bilownay. Thermochemistry waxaan ku bilownay waxaan ku define gareynay waa barashada energy changes during the chemical reaction. Marka it can be the chemical reaction is exothermic or endothermic. labada erina soo kala oo kala define gareynay labada process. waxa kale oo soo qaadanay examples ka about exothermic reactions iyo endothermic reactions. waxaan soo 10keena ku qaadan doonaa inaynu qeexno kelmadda enthalpy iyo inaynu kala saarno kelmadda kaleena enthalpy change iyo enthalpy labada kelmadood inaynu kala saarno ama qeexno taariikhdooda barano. way soo kalena waxaynu eegi doonaa sida loo dhiso ama loo sawiro wax loo yaqaano energy profile ama enthalpy profile ama energy level diagram kabasir doonaa loo dhigay. way ugu horeyn kelmadani mar waa enthalpy change marna waa kelmadda enthalpy. marka la yiraahdo enthalpy waa energy. marka energy-da ugu muhiimsan waa heat ee chapter-ka kaga hadli doona. marka enthalpy waxa la yiraahdaa waa tamarta ku kaydsan walxaha. tamarta ku kaydsan maxay? tamarta ku kaydsan walxaha weey. marka waxa la yiraahdaa enthalpy marka la qeexano waa is stored energy. waa is stored energy. waa tamarta ku kaydsan energy ka hadlayana it's a heat lakin it can be electricity or light ayna noqon kartaa lakin tan hadda ka barana waxa weey waa heat energy. waa is energy stored waa is stored energy of material of material. waa tamarta ku kaydsan walxaha kala duwan ama materials ka tamarta ku kaydsan at constant pressure marka markaynu qeexno kelmadda enthalpy waxaan odhanaynaa waa heat energy symbol. marka kelmadda qeexno waa heat energy. waxaa la sameeyaa symbol ayaa la isticmaalaa ama loo soo qaataa enthalpy marka lagu leeyahay enthalpy. haddaynu enthalpy ku sheegnay waa tamarta ku kaydsan walxaha waxaa loo soo qaataa symbolkeeda h baa loo soo qaataa h. way enthalpy-ga wuxuu leeyihiin ama walxaha kala duwani waxaa la cabiraa change-ka. لكن enthalpy أما تمركاسي directly لو ما عبره لكن واحد عبره وحوي وchange كده مرة واحد سماه عبره واحد ده دونا كلمة كلاء enthalpy change. أما نلاقو it's usually measured it is change. أما the change is usually measured the change is usually measured. هذا الشيء واحد عبره وحوي وchange أو محن قرية enthalpy change واحد قرية enthalpy change واحد عبره ده وحوي وchange enthalpy change. عيا عملية العبرة أو واحد عبره ده واحد يقارنه final and initial temperature. for example واحد الجوبية ولا حماس كذا الجرانيو heat كان كصباحي أيوة حقيقة دونا البيو فولين كذا الجرانيو واحد كرتشر دونا لبضة temperature حاجة مقيمة calculation سكوار دونا. مركا enthalpy أما energy ده كوكا يتسوى الحاجة لو ما عبره directly لكن واحد عبره it is change إسبدل. هذه الجوبية شدالكي هذه الجوبية الحشي معناها change إيمانه دالة هجرة. مركا هذه نسيم مركا استعمالي هج كلياتها enthalpy change مركا نلاقيها سيم مركا نستعمل دونا وحاول نقوليا سيم مركا نستعمل دونا وحاول نقوليا دالة هج وحاول نقوليا سيم مركا نستعمل دونا دالة هج وحاول نقوليا دالة هج. وايد واحد كان صار لنا بقى أو مرنا نكورني enthalpy مرنا ينوري enthalpy change. أنت هذا الكرسي كله وحنا برضونا سيابها لون الصوت energy profile إسكان. مرة هراء وعيدين قاعد دونا كلمة enthalpy profile. عم بوحر لها energy level diagram أم enthalpy profile لبضع قوة قارك كتاب بوقتها أي كندوة أما بوقين التكست بوقو لبضع يجيب وقرية. مرة لها enthalpy profile وامحي وحوي ويس diagram that shows حاصل متصليا the energy change during chemical reaction during the
chemical reaction. Why? It can be energy changes energy and energy change during the chemical reaction. It can be exothermic. It can be exothermic or endothermic. Why? waxa la yaqaano enthalpy profile waxa weeye waa diagram in tusinaya energy changeska during the chemical reaction. It can be exothermic or endothermic. labada qayb midkoodba waa loo sawiri karaa energy level diagram ama energy profile. waynu kala qaadanayo haynu ku horeyno ka koobaad oo ah exothermic reactions. Exothermic reactions waxay ahaayeen reactionska heat siya surrounding. marka energy amba heatku waxa waxa from system to a surrounding. maana heatku waxa uu ka tagay chemicals falgalaya ilaa surrounding. waxa kamid ah combustion reaction, waxa kamid ah neutralization reaction, waxa kamid ah reactions farabadan oo aynu examples xageena hore soo qaadanay aynu ku muujin doonaa ha ugu badnaadaan kuwa combustion reactionska amba oxidation reactions weeye. waayo marka la joogo exothermic oo define garayni on heat change from system to a surrounding. heat wuxuu ka tagayaa systemka oo marka chemicals falgalaya ilaa surroundingka. waxa la rabaa enthalpy ay leeyihiin reactantsku. enthalpy of reactants tamarta ay leeyihiin reactantsku is greater than calaamada saatan isticmaalaya enthalpy of product. enthalpy ay leeyihiin ama tamarta ay leeyihiin reactantsku marka la joogo dhammaan exothermic reactionska waxa badan chemicalska amba reactantska. reactionku waxa uu ahaa reactants iyo product waa marka chemicalska falgalaya way ka tabar badan yihiin productka. marka haddaynu sawirano energy level diagramka qaabka loo soo marsaa okay diagramka marka sawiranayo waxa weeye laba qaybood ma haystaa. halka markuu qoray Einstein amba wixii loo jiray enthalpy oo ku cabiran kilojoules per mole. waa halka markuu qoray reaction pathway طريقتي reaction pathway. It means reaction pathway work from reactants to product. Enthalpy ay leeyihiin reactants is greater than enthalpy of products. tamarta badan waxa weeye waa reactantska ayaa ka badan product. chemicals falgalaya reactantska ay tamartooda ka badan tahay. marka maadaama heat luminayaan waxay noqon doontaa dalka hajto minus kuwa maadaama heat siinayaan ay noqon doontaa dalka hajka aan ku cabiri doono example markaan ugu jirano. tan waa journal qaab ama journal graph way oo lagu sawiri karo reaction kasta oo exothermic reaction markaan sawirano enthalpy properties. haddii su'aal lagu weydiinayo qaabkee lagu weydiinayo tusaale ahaan haddii lagu dhahdo exothermic reaction waxaa lagu yidhi draw example 1 baan idhi. example 1 su-aasha qaabkee baa lagu weydiinaya waxaa lagu yidhi waxaa lagu oran karaa draw an enthalpy profile. waxaad sawirtaa enthalpy profile of complete combustion of methane. reactionkani ama example ka koobaad ee buuggeena inoogu yaala dalka hajtuna waxaa la siiyey dalka hajta ama enthalpy change-ka waxaa la siiyey minus 890 kilojoules per mole. waayo tusaalahani waxaa lagu dhex sawirtaa enthalpy profile of complete combustion of methane. Okay, methane is an organic compound. Methane waa maxay? Waa organic compound. When it reacts to oxygen, the product carbon dioxide and water. Okay, plus energy. Energy waa la cabiray. Marka enthalpy change is measuring. Energy maanta waxa weeye waa minus 890 kilojoules per mole. Numberkan sidoo ku soo baxayo
waxaan ku dhigan doonaa casharadeenna soo socda laakiin hadda waxaan تصورنay tamartii baynu sheegnay reactionka inuu yahay mid exothermic reaction dhowr arrimood baynu ku garan karnaa qodobka koowaad combustion reactionska hore waxaan kuugu soo sheegay inuu ka mid yahay reactionska heat surrounding siiya amba reactionska tamar soo saara way energy is given out waxyaabaha ugu yaqaana ka mid tahay oo inuu reaction yahay mid exothermic reaction waxaa lagu yaqaanaa chemicals release heat energy is given out macnaha points ka lagu yaqaano waxaa ka mid ah chemicals ka falgalaya heat is given off heat is given off heat ama tamar baa la sii daaya heat is given off waxaa lagu yaqaanaa reacting chemicals chemicals ka falgalaya reacting chemicals ka falgalaya loss energy tamar bay lumiyaan chemicals ka falgalaya dalta waa negative ayaa lagu yaqaanaa reactionska exothermic reactionska way maadaama yahay chemical equation waxa hadii jira noo muhiima inaan ku dhigno mid balance ah oo isleekeysino reactionska iyo product marka inta isleekeysino waxa ka bilaab doonta samka qolada waa waxa ka dhameystiran tahay hydrogen waa afar xaga maxay waa laba marka coefficient is far dhiga waa laba ka dhigay hydrogen afar noqon way carbon iyo hydrogen miisaan waxa noo dhigo oxygen waa laba iyo labadan saddex xaga ma ka dhigay laba si afar noqoto to waxa loo yaqaanaa thermochemical fusion baa la yiraahdaa waa balance chemical fusion waliba with value of enthalpy qiimihii baa raacsan qiimihii ayaa raacsan way haddaba aynu sameeyno aan sawiro in usaasha weydiiyo ah draw enthalpy profile of complete combustion methane inta ma kale sawiro waxaan garanayaa markaan sawirayo enthalpy profile-ka tamarta ay leeyihiin qolada la yiraahdo reactantisku tamarta ay leeyihiin reactantisku ayo halkan ku sawiraya hajtaydi halkan wuxuu ku qorayaa maxay reaction pathway waxa sawiraya dariiqada reactionka waa from reactants to product intaas aan sawiraya way halkan marka sheegayo waxa oranayaa kuwan waa reactantiskaygi waa maxay waxa weeye waa methane plus oxygen okay it burns to give carbon dioxide plus water so saaran carbon dioxide water chemicals ka falgalaya reactantiska tamartoodu way ka badan tahay product macnaha tamarta badan waa maxay waa the energy of chemicals daatada maanta waa maxay waxa weeye waa -90 kilojoules per mole numberkan waa tamartii ama energy change reaction waa reactions that gives out the heat to a surrounding numberkaasi sidoo ku soo baxayna lessonska dambe aynu ku dhigan doono hadda aan meesha su'aashan waxay uga faa'iideysanaysaa su'aal kasta oo lagu weydiiyo enthalpy profile-ka gaar ahaan laakiin reactionkaas waa inuu ahaadaa mid exothermic reaction waa inuu ahaadaa way qaybta labaad reactionska ama enthalpy profile lagu sawiri karo waxaa ka mid ah reactionka magaciisa loo yaqaano endothermic reaction reactionkan wuxuu ahaa ama reactionska la yidhahdo chemical reactionska labaynu u kala saarnay markoo qaybinay ama ku salaynay energy transferka isbedelka tamarta aynu nidhi midna waxaynu nidhi exothermic main ka hore midna waxaynu nahay endothermic waa reactions that are taking heat from the surrounding waxa ka mid ah photosynthesis ka mid ah decomposition ka mid ah amba electrolysis noqdo mid doonaha noqdo ayaa ka mid ah way marka waxa kale ka soo jeedaayo waxaan qanasaa enthalpy of reactants tamarta ay leeyihiin reactants ku falgalayaasha enthalpy of reactants is less than enthalpy of profile is less than enthalpy of product tamarta ay leeyihiin reactantsku way ka yar tahay oo reactants tamartooda yar marka la barbar dhigo enthalpy of profile tamarta ay leeyihiin enthalpy of product tamarta ay leeyihiin products oo qaabkan u sawirana waxa sawiraya enthalpy profile-keedi sida aan aqaan marka horeba enthalpy profile-ka xagga wuxuu ku sawiran jiray hajtaydi oo igu cabiran kilojoules per mole igu cabiranaya aan ku qoran jiray xaggan wuxuu qorayaa reaction pathway waa from reactants to product reaction pathway waxa tamartoodu yar tahay reactantska waxa la gaari doonaa maadaama tamarku soo siyaadayso product bay gaari doonaan tamarta ay leeyihiin reactantsku ayaa ka yar tay leeyihiin maxay product ka waxa lagu yaqaanaa chemicalska falgalaya tamar bay soo qaataa marka waa maxay waa energy taken in reactant chemicals energy taken in sidoo kale reactionku
it takes heat energy waxaan soo qaadan doonaa heat energy haddii tusaale lagu weydiiyo ama su'aal lagu weydiiyo qaabkee lagu weydiinaya example la dhaabo examplekaasi seebaa lagu weydiinaya su-aasha waxaa lagu weydiinaya su-aasha buuggeena ku taala waxaa lagu yidhi draw waxaad sawirtaa draw enthalpy profile waxaad sawirtaa enthalpy profile sawir baa lagu yidhi enthalpy profile waxaad sawirtaa enthalpy profile of decomposition of calcium carbonate. Decomposition of calcium carbonate. Waxa ka soo wata decomposition reaction. Decomposition reactions waxay ka mid ahaayeen endothelmic reactions. Marka waxa lagu weydiiyay enthalpy profile waa sawiraysaa decomposition of calcium carbonate. It produces calcium oxide oo dhagaxan nuurada la laabo oo calcium oxide iyo carbon dioxide smoke waa isagu noqon reaction waa calcium carbonate it decomposes into calcium oxide plus carbon dioxide tan energy is applied heat energy baa lagu supply garanaya halka heat uu soo saaray waxyaabay ku garan reaction ka keenay qaybtan waxay noqon doontaa reactantkii qaybtan waxay noqon doontaa product ay noqon doontaa inta biga leeyihiin product way ka tamarayaan inta biga leeyihiin reactantsku marka soo rarno energy profile-kii tamarka badana sabab maxay waa reactantska maadaama tamar soo siyaadaso oo way marso from surrounding to system waxaan soo rarnaa waa ka halka waxaan ku qoranayaa enthalpy profile halkaas waxa weeye waa haytaydi igu cabiran kilojoules per mole igu cabiran halka waxaan ku qorayaa reaction pathway dariiqadii reaction way kimberleyska fargalaya waxa weeye kimberleyska fargalaya tamartooda waa kimberleyska fargalaya waa maxay waa calcium carbonate waa maxay waa calcium carbonate these are reactants the energy of reactants is greater than tabaruati water product waa calcium oxide plus carbon dioxide way su'aalahaasna waa kalabaad ama waa qaybta endothelmic reactions kiisa koobaad ee buuggeena textbook ku yaala waxaan kaga jawaabnay ama waxaan barta ku baranay siyaabaha loo dhiso energy profile-ka laba qaab midkood either by exothermic or endothermic mar waxa sareynaya ama tamartu waxay badan tahay reactantka oo waa marka waxa la yiraahdo endothermic reactions exothermic reactions endothermic reactions tamartu kuwa tamarta badan waxa weeye waa reactantska fargalayaasha weeye labada tusaale iyo kuwa kale la xidhiidhaba ay qaabka soo wari doonta haduu la yidhi way guud ahaan casharkeen maanta waxa ku saabsanaa laba erey ama laba qodob inaynu kala garanno number 1 inaynu qeexi karno kelmadda enthalpy oo ku qeexnay waa tamarta ku kaydsan walxaha iyo sidoo kale inaynu garan karno enthalpy change waa isbeddelka dhacay marka walax la gubo amba change way tamartii lagu sameeyay sidoo kale waxaynu qeexnay enthalpy profile iyo labada qaab loo kala sawiri karo waxaan enthalpy profile-ku waa energy change-ka marka chemical reactions-ka ama noqdaan exothermic ama noqdaan endothermic waxaan baranay reactions-kaasi exothermic-ka sida loo dhiso enthalpy profile waa halkaas aynu ku dayn doonaa xiisadeenna koobaad waa xiisadeennaas waa inoo insha allah ee casharadii dambe oo salaam calaykum arday baanahayo